jaamacadan macallinka ahaaba gabadhanaysa baa wiil la saaxiibtay wiilkii baa muddo ay la socotay saaxiibtinimadii baa dheeraatay ciddeedii baa ku xanaaqday waxay yidhaahdeen wiilkan ama isguursada ama kala hara wiilkii la hadashay ma ku rabo yiri saaxiibaan nahay saaxiibtinimada kifaaya waa wax dhacay waay waalidkeedii waxay ku yiraahdeen hadduu saas ku yiri ka har ma ka hari karay tiri haddana maxay la aqligeedii buu xaday moogtahay adiga marka hore waxaad moogtahay marka gabadhii mushkiladaas haysata ninka ciyaal suuqa aba helay inuu guursadana ma rabo maxay uga hari laadahay waxbuu ka hayaa intaasoo sawir intaasoo balaayo intaasoo ka hayaa saytira waa ka haray bis waay duurku ku soo deynaya imisa gabar saasada dhibaato ugu xareysan meel ma qiyaasi kartaan waxa la yiraahdaa marka waqtigaaga iyo furayaashaada iyo go'aankaaga inta adiga leedahay ee ka fakanin maalinta aad sawir iska siidayso ama wax ka baxaan ma mushkilad weey dhaheena waxaan ku waaninayaa oo aniga kulay hadda gabdhaha wax bartaan la hadlaya iskoolada iyo jaamacadaha jooga ee internetka isticmaala inay isqariyaan quraanku waxa jira tilmaamo oo tilmaamay oo inaga aynaan fiirinin waxa la yiraahdaa az-zani la yankihu illa zaniya aw mushrika waz-zaniyatu la yankihuha illa zani wayna waxa loo jeedaa gabar kasto duurka ku jirto isbandhigto ismuujisa ninka soo raadina waa ciyaal suuq kale danna kama laha inuu hadhow ku moodo hadhow iska tuuro iskaga sii tago oo iska doonaya dan kaba leh waxa la rabo waxa waaye nin ku danaynaya inaad raadisid oo mustaqbalka doonayo oo ka fikiraya oo ka naxaya oo ku haysanaya oo kula murugoonaya kaana waxaad heli kartaa markuu adiga aad qof wanaagsan noqoto oo qof wanaagsan ilaahay ka barido yuu ku imanaya waxaana la ogaaday gabadha kullama ay qarsoon tahay waa la soo raadiyaa kullama banaanka ay joogtana waa laga cararaa uu tilmaamay sheekh al-Hussein wuxuu yiri yaani gabdhaha ninka ciyaal suuqinta markii gabdhaha inay guursadaan rabaan waxay gabar wadaada oo quraanka xafidsan meelahaas ay ka raadinayaan kuwii oo saaxiibada la ah ma raadinayo